odayaasha mid ka mid ah beelaha ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa kulan maanta ay yeesheen kaga hadlay sida ay u arkaan doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxtinimo waxayna sheegeen in arrimahan ay yihiin dhibaato lama filaan ah oo dalka ku soo korortay odayaasha qaarkood ayaa sheegay in loo baahan yahay isbedel iyo sidii loo heli lahaa dawlad xalaal ah sida ay yiraahdeen ummaddu isbedel ay u baahan tahay nimanka walaalaheeya oo tiimka waqtigeedu dhamaaday oo madaxweyne xasan sheekh hogaamiyo intaas ugu baaqaya anigoo ku hadlaya afkayga iyo ka waxgaradka odayaasha hawiye iyo midka Soomaaliyeed oo ku salaysan sidii raggii hore u sheegay sida Soomaaliyeed danaynayso ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ugu baaqo meelay joogaan garashada ay leeyihiin hadday yihiin maamul haddii ay yihiin dad siyaasiyiin iyo hadday yihiin shacab waxaan rabaa inaan ugu baaqo anoo afka hawiye ku hadlaya waxgaradka hawiye keyga Soomaalnimo u hadlaya Soomaaliya burburkii ka bacdi dhibaato ku dhacday qof kasta oo Soomaaliya oo garasho leh waxaan ka codsanaynaa oo ugu baaqaynaa inuu iska daayo go'ashada gobolka lagu saleeyay ama beesha lagu saleeyay ee la go'anayo wixii dhacay ee burburkii sababay hal loo soo jeesto Soomaalinimo laga shaqeeyo Soomaali isbedelkeed sidoo kalena waxa kulanka laga soo jeediyay in beesha caalamku jawaab ficil ah ka bixiso xaalado ay ku tilmaameen musuqmaasuq iyo wax isdaba marin ka jirta hanaanka doorashooyinka iyagoo dhaliilay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan waa kulan wax garad ka xanuunsaday dhibaatada dalkeenni sida lama filaanka ugu habsatay waa kulan aan maanta bilow ahayn ee soo socday qayladhaantiisu taagnayd mataqaanaa in wixii aan ilaa hadda ka hadlaynana wax iska bedelay iyo wax la yiri mataqaanaa war waxaad ay beeshani ka qaylinayso ama Soomaali ka dhawaaqayso maxay ahaayeen caalamkuna isma weydiin hadduu isweydiiyana hadalay ku eg tahay maaha ficil annagu ma aragno hadal ficil caalamkii ficil kuma aragno hadalaan ku aragnaa waxaanay u baahan tahay arrinta maanta na hor taalla oo aan isweydiinaynaa ficilay u baahan tahay waxay u baahan tahay jawaab in caalamku ka bixiyo kulankan ayaa laga soo saaray baaq qoraal ah oo ka kooban 11 qodob oo ku baaqaya in haddii aan wax laga qaban dhibaatadan aan Soomaaliya laga filan karin doorasho xor ah oo xalaal ah ka socota dalka taasoo loo maamulayo si musuqmaasuq ah qodobka afraad qaabka soo xulusta xildhibaanada aqalka sare ayaa iyadana lagu sameeyay faragelin qaawan oo uu musuqmaasuq cad ka muuqdo inkastoo Soomaaliya aysan u baahnayn wax loogu yeero aqal sare oo ah dhibaato ku soo korortay bulshooyinka Soomaaliyeed qodobka lixaad musharaxiinta aqalka sare iyo kuwa aqalka hoose waxaa laga qaadaa lacag diiwaan gelin ah sidaas daraadeed waxay ummadda Soomaaliyeed ka sugaysaa dawladda waqtigeedu dhamaaday in ay u cadeyso bulshooyinka Soomaaliyeed lacagtaas meesha ay ku baxdo Ibrahim Maxamed Xuseen Ibrahim JK wararka STN magaalada Muqdisho